way jirtaa ani biyo dhib kuma qabo biyo anoo isticmaalay lacag yar ii keenta yes laakiin dhibkii igu weyn waa beeko haddana waxa iga daran bishi dambe waxaa sameeyay hooverkii iska dhaafay guriga casde gabar aatay guriga iska xaqo hooverkii iska dhaafay fridge-kii waxaan u soo gatay fridge guard maxaa la dhihi jiray fank AC-gana waa iska dhaafay ilmo isticmaali jiray because gurigayga dhinaca baddu xiga qabow natural iska heli jiray ayadoo inta had ay laba igu sii darto haddana horta oo hambalyeynaya guddiga khayraadka oo runtii si wanaagsan uga soo shaqeeyeen sharcigan iyo wasaaradaba aniga runtii guddiga sharcigan si gooni ayaan ciil ugu qabay laakiin markaan akhrista way bedelmata fikradihii aan ka lahaa waayo muddo hadda laga joogo 3 bilood dhib weyn ayaan ku qabo korontada waad dareemi kartaa reedka hadda lagu reed garay korontada waa 0.46 anigoo keligay degan oo inta badanna koronto isticmaalin bishii ugu horeeyay waxay ugu soo qortay was it $62 yes waa la yaab 62 iniga waxay nila tahay okay laakiin ani koronto ma isticmaalo gurigayga natural light uu leeyahay dadka oo aftiinka saaid u dhibaahay markii lacagta inta igu soo qortay waxa isdhahay waay koronto ma isticmaalin ninka guriga lahaayeen warsado waxaan dhaw adeer waay waxaan lacag igu soo qoraysaa then he said Soomaali waay la qabso marka waxa fahmi waay beeko ma maxay og tahay dadka xildhibaanada meelihii degaan miyay garanayaan ay lacagta ugu kordhiyaan because there's no way anoo gurigay koronto isticmaalin haddana waxa iga daran bishi dambe waxaa sameeyay hooverkii iska dhaafay guriga casde gabar aatay guriga iska xaqo hooverkii iska dhaafay fridge-kii waxaan u soo gatay fridge guard maxaa la dhihi jiray fank AC-gana waa iska dhaafay ilmo isticmaali jiray because gurigayga dhinaca baddu xiga qabow natural iska heli jiray ayadoo inta had ay laba igu sii darto haddana price-kii markii hore wagi laba igu sii dartay marka hadda bariyaha waxaa sameeyaa korontadoo shidan aan ka taga waxaa isdhaha waxaan waa waxay og yihiin marka maxaa u malaysaa qof tabar yar oo Soomaali ah oo mishaarkiisa $200 qaadanay korontada uu isticmaalay number waxaa rabaa in sharcigan aad buu u fiican yahay waxaan ka codsanayaa wasiirka iyo wasaaraddan ay waxaan qusaysaa maanta ugu horeysa inay rate kala bedelo waayo 5 months ago rate-ka wuxuu ahaan jiray 0.36 shidaalkii hoos u dhacay markii hore waxay dhaheen shidaalka kor buu aaday shidaalka hoos u soo dhacay in wali 10kii ay ku darsadeen kamay soo ridin so waxaan ka codsanayaa wasiirka inuu maanta ugu horeysa effective immediately in rate-ka lagu soo celiyo sida rate u ahaan jiray midda kale wadanka markuu masiibo ka dhacdo ma arkin shirkad beeka oo Muqdisho oo whatever la dhaho oo qaar oo dadka u soo gurmanayso waxay qabtaan ba malaha dadka waxaan arkaa dahabshiil iyo Salaam Bank oo lacag gurayaan ayaga meel lacag ku guraana lama arko hal maalin waxa la jira hata wadankeena maanta aan joogno xamar oo magaalo madaxda street light xitaa malaha waxa la roo inay street light free ku bixiyaan oo wadanka ay waxa la jira shacnigiisa la arko uu dhalaalo maalin kasta waxaa jirta qasaaro badan ka soo gaarda ummadda Soomaaliyeed korontada regulation dhan malaha safety malaha sidii maalin hore bakaaraha gubto waxa gubaya waa korontada waayaradan 10ka waayaro iskor saarayaan maxaa la jira compensate ma sameeyaan qofkan dhaawac ku soo gaaray ma daaweeyaan lacag ma siiyaan so they have to inay maxaa la jira dhibaatadan ay ummadda ku hayaan muslimiinta inay haday compensate garan karin inay meeshaas kaga baxaan dawladda baasha la wareegta ayada dhanba ay noqoninba public private partnership aysan noqonin biyahana waa run way jirtaa ani biyo dhib kuma qabo biyo anoo isticmaalay lacag yar ii keenta yes laakiin dhibkii igu weyn waa beeko